iyadoo maanta kale ay ku aastaysan tahay maalinta caalamiga ee xuquuqda aadamaha iyo hay'adda Care International labadii toddobaad ee ugu dambeeyay ka waday barnaamijyo wacyigelin oo bulshada laga wacyigelinayo tacadiyada ka dhanka haweenka iyo carruurta waxaanay qabanaysay kulamo iyo doodo la xiriira sidii loo soo afjari lahaa xadgudubyadaasi waxaana munaasabad ballaaran lagu qabtay hoolka Bartisoor ee magaalada Ceergaabo ka soo qayb galay mas'uuliyiinta maamulka gobolka iyo degmada madaxda hay'adda Care ee gobolka iyo waliba gudiyada xuquuqda aadamaha ee deegaanada miyiga iyo gudaha magaalada Ceergaabo waxaana ugu horeyntii halkaasi ka hadlay madaxda hay'adda Care International كسناك مختار عمر مؤمن يوريبا سدوها وزارة شغالين arrimaha bulshada Amar Faadma Xaaji Xasan xafladani waxay daaran tahay soo xiritaanka 16 cisho ee loo aasteeyay maalmaha ka hortagga tacadiyada carruurta iyo haweenka maalmahaas oo soo bilaabmay 25 November maanta bishu tahay 10 December-na dhamaanaya activity badan oo soo socday muddadaas ayaa maanta xidhitaankeedii ay tahay inaan soo xidhno soo afmeerno waad ogtihiino tacadiye badan baa way soo badanayaan tacadiyadii lagula kacay haweenka waxa ku soo saacidayay walibana in kufsigii waxa saayid ku soo noqonay in isaguna uu dil u raaco marka insha Allah waxaan rajaynaynaa maadaama soo wadnay 16 ka cishaba wacyigelin ku saabsan tacadiyada haweenka iyo carruurta insha Allah waxaan rajaynaynaa in wax badan iska bedeli doonaan hadii la hayra marka hadafkeena maanta wuxuu ahaa dhamaanteen aynu cirib tiro tacadiyada ka dhanka carruurta iyo haweenka iyo guud ahaanba dadka nugul caalamkeena aynu ka dhigno caalam orange ah oo midabka aynu joognaa inaan sharciga laga daba tagin marka bileeska soo qabto inaan maxkamadda laga daba tagin inaan odayaal ka daba shaqayn in la mariyo jawaabta uu xaq u leeyahay ama xaq xeerku siiyay ama ciqaabta uu xaq u leeyahay waa in la mariyaa waana sidoo kale halkaasi ka hadlay xubno ku hadlay afka gudiyo ka yimi 15 duulood deegaanada miyiga ah kuwaas oo dhinacooda ballan qaaday hay'adda Care oo soo qaban qaabisay seminaarkan tababaro hore oo aad iyo aad u badanna bulshada gaarsiisay aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba bulshadana waa ku baraarujinaynaa wixii aanu gaarsiin karo wixii aanu ka qaban karno waa ka qabanaynaa aanu ballan qaadaynaa inaanu si fiican u gudbin doorno fariintan horena waanu uga qayb qaadanay tuulooyinka waanu uga hawlgalay tacadiyada ka dhanka ah haweenka iyo cid kastoo nugul waxaana sidoo kale halkaasi ka hadlayaha qaybta bileeska gobolka iyo maayirka degmada Ceergaabo waxaana ugu dambeyntii munaasabadaasi soo afmeeray barasaabka gobolka Sanaag Injineer Axmed Cismaan Xasan ama dadka dhaqanka u hay cuqaasha iyo dadka ay dambiyaha meelaha u odayaasha kiiskan heshiiskiisa la joojiyo oo sharciga la mariyo hadii uu dambigaas tacadiga kufsigu wuxuu ku yaraan karaa ciqaabtiisa aad loo sarreeyay heshiis malaha سامح مالها حبسيسو ولمايسترتا قفكو waxaana ugu yarilaa 13 years ilaa 15 bal talaabooyinkan kuwa ka bedelan ayaa loo baahan yahay baan u maleynayaa dhinaca xukuumadda wixii way soo kordheen heerayn weligeed gaadhin bay gaadheen gabadh qofsado baa la arki jiray wadar bay noqotay dil baa ka dambeeyay waxaan leeyahay golayaasha qaranka iyo madaxweynaha talaabo degdeg ah oo tii hore ka culus baa loo baahan yahay sida laguna noolaan maayo dalkuna jiri maayo waa ceeb weyn waa waxaan la arki jirin raggii inkaar baa ku dhacday arrintan wax laga qabtaa loo baahan yahay nabayna hawlgalka rabnaa waxa kale oo baahannahay iyada lafteeda markastoo seminaarada la isku yimaadana nabadgelyadana way dhaxgeliyaan nabadgelyadana way wada adkaysanayna nabadgelyada lafteedu ay kamid tahay waayo hadii maxaan ku dhahay hablihii la kufsanayo nabadgelyo ma jirto ka laftiisa dhibaatada horseeday waxaan keenaya hadda waxa laga yaabaa laba dhinac la isku dilo marka waa inaynu mar walba nabadgelyadana ilaashano dhinac uga soo wada waxaan ku jeesano qofka dambiilihiina uu qof noqdo aanu reer noqon aad iyo aad baad mahadsan Cali Aadan Daahir TV-ga caalamiga Home Cable TV magaalada Ceergaabo